xaaladaha Itoobiya ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay si degdeg ah isku beddelaya. bilowgii bishan waxa ay TPLF ku naaloonaysay inay la wareegi doonto arad kiilo oo ah aqalka looga taliya dalka Itoobiya ee ku yaala kilomitir 4 Addis Ababa. yoolka ugu weynna waxa uu ahaa markii ay horumar ka samaysay qayb ka mid ah dagaalada ay ka waday ismaamulka gobolka Amxaarada iyadoo qabsatay 2 marin oo muhiim ahayd. ha yeeshee kooxda waa ay ku adkaatay sida xilligan muuqata inay la wareegto arag kale oo muhiim ah oo ah ismaamulka Canfarta, waana aagga ugu weyn ee ay doonaysay inay noqoto halka ay ka go'doomiso Addis Ababa. balse toddobaadkii la soo dhaafay dirir culus ayaa ka dhacday dhammaan marinada Canfarta xigta ee ay la leeyihiin Tigray, waxaana sheegayaan ilo wareedyo ka madax bannaan dhinacyada in xoogagga Tigraygu ay ku guuldarraysteen inay horumar dagaal ka sameeyaan aagagaasi. qaar ka mid ah taageerayaasha kooxda oo baahiyey macluumaadka la xiriira inay guul dagaal ka gaareen aagagaasi ayaa ugu dambayntii wakaaladda wararka ee AFP ay sheegtay inay waxba kama jiraan tahay in goobahaasi gaar ahaanna Mille ay qabsadeen kooxda TPLF. waaxda arrimaha dibadda ee Mareykanku waxay 24 saac ka hor ugu yeertay mar kale in dadka Itoobiya ku sugan ee u dhashay waddankeeda ay si degdeg ah uga baxaan Addis Ababa, waxaana lagu tibaaxay warkaasi inaanu jirin qorshe Washington diyaarisay oo la xiriira mid military ama ganacsi oo lagu daadgurayn karo muwaadiniinta Mareykanka. waxaana tallaabadan ay muujinaysaa inay Mareykanku hoos uga dhaceen warkoodii la xiriiray in howlgal military ay ku geli doonaan Itoobiya haddii loo baahdo, oo uu horey u sheegay sargaal sare oo ku sugan saldhigga ciidamada Mareykanka ee dalka Jamhuuriyadda Djibouti. xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antonio Blinken ayaa tagay Nairobi oo uu halkaasi u tagay sidii arrinta gobolkan gaar ahaan Itoobiya oo wada hadal ugala yeelan lahaa Uhuru Kenyatta waxa uu maalmo ka hor ka soo laabtay Addis Ababa, waxa uuna kulan maalin la yeeshay dhiggiisa dalkaasi iyo weliba sidoo kale ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed oo ay ka wada hadleen dadaalada la xiriira in xal waaro oo siyaasadeed loo helo xiisadda ka taagan dalka Itoobiya. Abiy waa uu diiday in uu wada hadal la galo bilowgii kooxda TPLF, waxaana fariinta ugu dambaysa ee Uhuru ka keenay xagga Addis Ababa iyo Abiy Ahmed ay tahay in Mareykanku marka koobaad ay liqaan kuna dhawaaqaan in saxayd doorashadii dalkaasi ka dhacday, taasoo mar kale lagu doortay ra'iisul wasaare Abiy Ahmed iyo xubnaha baarlamaanka ee dalkiisa. waxaana taasi Mareykanku ay uga dhigan tahay inay tahay dilan siyaasadeed oo waqtigan aysan aqbali karin, maadaama isku hadlaynta Abiy ay ka qabaan ay tahay mid aad u yar. ergeyga gaarka ee Afrika u qaabilsan arrimaha wadaxaajoodyadan waxa uu dib ugu laabanayaa Addis Ababa, waxaana uu sheegay inay xoogga saarayaan sidii dhammaan dadaalka mar kale loo dhaqaajin lahaa. ha yeeshee rajada la qabi karo ee dhinacyadu inay xal nabdeed isugu yimaadaan waa mid sii libdhaysa ama cidhiiri sii gelaysa, iyadoo dhinacyo kala duwan ay sheegayaan inaysan marnaba suuragal ahayn miiska wadaxaajoodyada hadda in lagu go'aamiyo xaaladda siyaasadeed ee ka taagan dalka Itoobiya. TPLF waxa ay u muuqataa inay beddeshay luuqadda hadalka, waxaana maalin ka hor ay sheegtay in loo baahan yahay in dadka Amxaaradu ay ka hor yimaadaan xukunka Abiy Ahmed. taasi waxaa loo arkayey inay tahay hadal ay doonayso in ay xoogga ku saarto arrimaha kala duwan ee dagaalka, isla markaana sufuufta ka soo horjeeda ay ku dhex gelayso. madaxweynaha Tigraygu waxa uu maalin ka sii horreysay sheegay inay doonayaan in afti dadkooda laga qaado. sidaasoo kale hadal hayeenka kooxda ayaa sheegay in kala tagga Itoobiya ay horey u go'aamisay xukuumadda Abiy Ahmed. dhammaan arrimahan waxa ay ku soo beegmayaan iyadoo sidoo kale shirkii urur goboleedka IGAD ee la filayay in looga arrinsado xaaladda Itoobiya kana dhici lahaa Uganda dib loo dhigay iyadoo aan sababta rasmiga la aqoonin. ha yeeshee ila ku dhow IGAD waxa ay warbaahinta u tilmaameen in sababta dib loogu dhigay ay tahay iyadoo war laga sugayo dadaalada dib u heshiisiinta ama wada hadal ee ay ka shaqaynayaan Mareykanka, IGAD iyo Midowga Afrika. waxaana hadda Mareykanku u muuqataa inay ku adkaatay xaaladda inuu si toos ah isugu qaawiyo oo faragelin uu ku sameeyo, gaar ahaanna dadaal xoog leh oo ku doonaya in Abiy xukunka lagu dhaafiyo si degdeg ah oo dhaqsiyo leh ayaa u muuqda mid fashil qarka u saaran, maadaama Mareykanku aysan weli ku dhiiran inay cagaha la galaan xaaladda taagan marka laga tago
inay u sameeyaan taageero xoogan kooxda TPLF iyo dhammaanba kooxaha ka soo horjeeda. AFP waxa ay dhinaca kale arrimaha gargaarka aadanaha ay sheegtay in 200 oo qof oo carruura ay gaajo ugu dhinteen gobolka Tigray iyadoo ay weli go'doon yihiin dhammaan jidadka gobolkaasi laga galo. arrinta Itoobiya midowga Yurub waxa ay sheegeen in ay walwal weyn ka qabaan in Itoobiya ay si fudud oo waslada u kala daadato Yugoslaafiyada Afrikana ay noqoto dawlado yaryar oo hal gobol ku wada yaala, taasoo ay sheegeen in hore loo saadaalinaya muddo dheer inay qaadan doonto ha yeeshee ay wakhtigan soo degdegtay. dadka Soomaali galbeed ayaa si weyn indhaha ugu haya xaaladdan, waxaana Itoobiya oo kala tagta ay ka dhignaan doontaa in waddankii ugu dadka badnaa ee gobolkan uu hadda wajahayo in uu kala daatay iyadoo qowmiyad ay isku haystaan dhammaan dhinacyaduna ay aad u kala irdhoobayaan. ma jeceshahay inaad barato qur'aanka kariimka ah iyo culumta shareecada ugu kaalay markaska Nuurayn online oo baro adigoo gurigaaga jooga qur'aanka higaada iyo culumta kale islaamka. wixii faahfaahin kala xiriir nambarada shaashada kaaga muuqda.